الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان دي السلام إياه. سلامك بعدي وحن دوني إن نعاو أما ما أنت كهضله. أفر نبر أما أفر قضب. دقالك الدولة ما في ذا فرماتشو حرونتي ذو حمرتهاي شمال لانكو هاي سويدت كده وقضب qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka isaguna ay ku hayaan kuwa Soomaaliland u dhashay ee xamar jooga iyo kuwa taageerayaasha u ah dunida meel kasta jooga ee farkutiriska ayaan badnayn dayacaadda Soomaaliland dawladeedu ay dayacday ama kaalmahay banaysay oo iyagana isu taago talo dawladda ku socota oo aanan ka daalahayn oo waxay ii muuqda aan ka hadli doono haddii dawladdeeda ilaahay garansiiyo oo ay qaadatana aan jeclaan lahaa laakiin marnaba anigu aanan ka daalahayn hadday qaadanayaan iyo haddaanay qaadanaynba because inta quran awoodi karaa waa inaan sheego wixii ii muuqda oo aan gaadhsiiyo dadkayga cidda ficiliyan uga jawaabi karta ama uga shaqayn kartaana waa cidda midida daabkeeda haysa ilaahay baanan leeyahay garansiiyo afartaa qodob ayaan isku taagi doonaa dawladda sheegata Soomaaliya marna ka sheekeynaysa wada hadalka marna ka sheekeynaysa midnimada haddana dagaalka u bareeraysa waa dawlad aan odhan karo waa munaafiqiin tii quraanku sheegay iyo beenaalayaal waanan caddaynaya inay munaafiqiin iyo beenaalayaal yihiin waxaan ku caddaynayaa tiraba rag badan baa hadlay oo lahaa aynu weerarno iyo jasiira dadkii lagu laayay tuug bay ahaayeen iyo diyaaradday been bay sheegaysaa waxba may laynin iyo taariikh beenay haystaan iyo in la laayaaba saxa rag badan oo xilal haya ama la taliyayaasha madaxweynaha ah ama kuwii guddida wadahadalka loo magacaabay ah ayaa ilaahay ka hadliyey oo wixii uurkooda ku jiray kan farmaajo la yidhaahna uurkiisa ku jiray inoo sheegay haddana iyagoo sidaa sheegaya inay munaafiqiintii quraanku sheegan yihiin waxaan ku caddaynayaa farmaajo dhowaan waxa uu ka hadlay miidiyaha isagoo oo leh raaligelin baan ka bixinayaa wixii reer Soomaaliland gaadhay haddana dhinacan kale waxay ka leeyihiin oo dabadii hadlay nin lahaa diyaaradda maxay hargeysa saarani cuqdad carruurta lagu beerayo weeyaan turkigu ka hadlay nin guddida wada hadalka ka mid ah yacni diyaaraddiina wuxuu ku sheegayaa been abuur iyo cuqdad dadka la gelinayo haddana madaxweynaha kii uu ahaa wuxuu sheegayaa raaligelin iyo apologize taasi waxay ku tusaysaa laba hadaloo aad u kala fog inay marna yidhaahdaan haddii alla kuu roon yahay waa been abuur iyo cuqdad oo ay dagaalkii iyo lanagu qaaday iyo wixii dhacay oo dhan marna ay haddii alla kuu roon yahay ka apologize ka bixiyaan iyo raaligelin marna ay dafiraan oo yidhahdaan waxba kama jiraan waa cuqdad oo ay yasaan wixii dhacay ee taariikhdii caddaanka ahayd yacni taasi waxay ku tusaysaa calaamadihii munaafiqii qur-aanku inta badan ku dheeraaday weeyaan inta meeshaas ku urursato oo munaafiqiin beenaalayaal baan odhan kara beenta waxaan ka soo qaadanaya ay u bareerayaan madaxdoodu dhowaan ay ka hadleen cudurka coronaviruska ee adduunku khalkhalka geliyey maanta waxaa hadlay wasiir gabarh sheeganaysa caafimaadka ah waxaa kaloo hadlay farmaajo oo ah ninka ugu sarreeya maafiyada xamar joogta labaduba afkooda waxay ka sheegeen in cudurkaasi waddanka uu ka dhacay oo uu positive yahay oo qof laga helay way sidaynu ognahay qofkii ay ku sheegayeen inuu positive yahay muu noqon waxa keliya ku kalifayeyna ay beenta intaa lagu bareerayeenna waxay ahayd siday lacag kaga heli laayeen qaramada midoobay ama United Nations oo ballan qaaday inay lacag siinayaan dawladaha fakhriga ah ee xanuunkaasi haleelo markay ogaadeen in lacag loo ballan qaaday dawladaha fakhriga ayay u bareereen beenta intaa leeg ayagoo ilaahay aan ka xishoonayn oo ummadda ay magacooda sheeganayaan aan ka xishoonahayn oo dhibaatada ay arrintaasi keeni karta been abuurka intaa leegi u bareeraya ayay been sheegeen adduunkuna wuu ogaaday wixii ay sheegayeen inuu been yahay oo adduunku kamuu dhegaysan in haddii alla kuu roonyey waxaan caddayn ay sheegaan oo yidhaahdaan waa kiiskaasaa ayaanu ka helay
kiiskaa risaltigiisii iyo caddayntiisiina ma hayaan qofkii ku dhacayna wuxuu sheegay inaanu isagu xanuun haynin oo uu soo maray 4 dal oo lagu soo baaray oo nin dhakhtara buu ahaa oo aan xanuunsanayn bad qaba oo nool ayay ka been abuurtay ummadda madaxdoodii been abuurka intaa leeg samaynayso mijahoodii iyo intii ay xukumanayeen oo dhamina way kala siman tahay oo way ka sii daran tahay ummad iska daa in waxna dhex maraan ama aynu wax wada yeelanno ee jaarnimadoodu ay dhibaatay nagu hayso weeyaan oo ka tegey islaamnimo oo ka tegey aadaminimo oo ka tegey soomaalinimo oo aan nolosha maanta in la dhaafayo oo laga gudbayo oo ay geedi tahay adduunyadu oo mid lagu sii dhaxaya ay to aakhiro loo socdo aan garanayn yacni dagaalkaasi halkaasuu la maraya hadda waxa safar ku tegey oynu ognahay Addis Ababa ama dowladda Itoobiya wasiirka socdaalka ninka sheegta ee dowladda farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ka yara sheegta ee xiran labadaas u tagay Addis Ababa tagay waxa kaliya u tagayna waa dacwad ka dhana Soomaaliland inay cunaqabateeyaan kala dagaalamaan rasiqa iyo isgaarsiinta oo dagaal la galaan ayagoon awood u lahayn oo haddii awood u leeyihiin maalin hore ama mar hore hawada oksijiinta ayaan ku noolahay naga xidhla taasay maanta u joogaan waxay ku hayaan Soomaaliland propaganda iyo haddii alla ku rooyin lagu khalkhalgelinayo dawladnimadeeda dagaal intii ay awoodi karayeen nimanka aan taagta lahayn wax teelo umay dhigan waxna umay reebin marka mid aynu isla garanayno weeyaan inay dagaal inagu hayaan oo ay laban laabeen oo ay 3 goor laabeen oo aanu maanta eegasho lahayn waynu isla garanay ma filaya dagaalkii waxaan ka hadlayaa qodobka labaad dagaalka kuwa u dhashay Soomaaliland ee xamar jooga ay ku hayaan dalkoodii iyo dadkoodii ayagoo oon ka fikirahayn waxay faa'iidayaan oo dhalanteedka khiyaalka ah ee ay joogaan hulmoodi kuwa xilalka ka haya xamar ee ama xildhibaanada sheeganaya ama wasiirada sheeganaya ama magac kastoy leeyihiinba waxba kumay qaadan raggii ka horreeyey ee Soomaali weyn durbaankeeda garaacayay muddada badan ee Cabdiraxmaan Axmed Cali oo kii ugu sarreeyay Soomaaliland madaxweyne ka noqda oo gudoomiyihii ugu dambeeyay saname isagoo xilka hayo on laga qaadin ahaa ee xamar tegey ee isagoo kabala oo aan waxba ahayn ka yimi waxba kumay qaadanin Ismaaciil Buubaayo maanta masalaha fadhiya oo aan xamar tegi karin 30 sano in ku dhowna u shaqeynayo u ololeynayay kumay qaadan Axmed Ismaaciil Samatar oo juhdigu galiyay la ogaa oo markii uu doorashada soo taagay soo qoostay oo waxaanu arkaynay annaguba nala soo arkay intaasoo dhan waxba kumay qaadan nimankii halkaa tegay xamar ee 30 sanood ka shaqeynayay mid waliba isagoo ciil hayo oo aan waxba u suuro gelin oo aan waxba ahayn ayuu cafis weydiistay dalkiisa ku soo noqday hubaal inay cafis weydiisan doonaan iyaguna laakiin ragga xamar jooga teelo may dhigan marka laga tago in fara ku tirisa aniga way kala soocan yihiin waan qortaa hadalladooda xog badanna waan ka hayaa nimanka xag jirka ah ee Soomaaliland dagaalka weyn kula jira waan ogahay waan magacaabaya way ii qoran yihiin dadkana waan soo gudbinaya biixi iimaan ninka la yidhaah oo xildhibaane waa ka ugu xun iyo ninka lagu yidhaahdo Mahdi ama Khadar Maxamuud Guuleed oo ra'iisul wasaare ku sheegta labadaba isku reer baan qaar kaloon isku reernimo way joogaanoo aan shar iyo khayr toona waddanka u geysan iyo qaar difaacaba oo kow ka yahay ninka la yidhaahdo in Xuseen Carab Ciise oo taariikhdu qorayso inuu isagoo halkaa jooga oo meel halisa jooga uu dalkiisa iyo dadkiisa u hiilinayo ninka labada nin ee aanu ilmaadeer kanay ee haddii alla ku rooyay ka xigeenka sheegtay ra'iisul wasaare xigeenka ee xafiis balahayn iyo meel xukumo ee waraaga utaag ee Khadar marna Khadar la yiraahdo imkana Mahdi sheegta iyo biixi iimaan ninka la yiraahdo isaguna ciida gala ah waa labada ugu xun ee dadka iyagi dhex galay ee dhex qaaday caruurtayda iyo dumarkayga baabiiyay ayaga oo doonaya waxa ku kalifaya aan la garanin heerkii ugu xumaana dadkayga la maraya waxa kamida kuwa ay sida xun u nool ee sida xun dalkooda ula dagaalamay dadkooda ninka la yiraahdo xildhibaan Sugulle
oo isagana aan ogahay xogta xog badan ka hayo waxaa ka mid a wasiirka dastuurka ka sheegta saalax waxaa ka mid a maareeye oo isaguna qof xuna laakiin aan ku xidhnayn dadkiisa ama beeshu ka dhashay aan ku xidhmi karin oo aan ogahay inaanu ku xidhnayn waxbana aanu qaadi karin oo uu yahay qof keligii meel ka qaylinayoon reer yooniska uu ka dhashay ku xidhnayn kuwa kale laakiin reerihii bay dhex qaadayeen madax baabay u yihi waxaa ka mid a ninka la yidhaha cabdi xaashi ee aqalka saraan haysta ay dhahdaa sacad muuse waa qof xun oo liita oo haddii alla kuu royo intuu liito isagoo nin weyna aan waxba ahayn cabdi xaashi waxaan ogahay gurigiisa waxa seexda maxamed cabdi yuusuf ninka awrtable ee lahaa somalilan ha la weeraro ee lahaa jasiira dadkii lagu laayay been baa haydo tuug baa hayd hadduu damiir leeyahay ninka sidaas ahi cabdi xaashi gurigiisa muu seexday ninka la yidhaha biixi yimaan waxaan ogahay ciyaalka iyo hablaha yaryar ee ka tegay hargeysa iyo burco iyo somalilan iyo boorame iyo meel walba intuu ururiyo ee fiisayaasha u doontay ayuu ka dhigaa dad somalilan midnimadeeda ka shaqaynayo u soo bohoriyoobay midnimo oo maasuul lacag ku qaata wallaahi waan ogay intuu soo ururiyo waa carruur qaxoontiya oo safarro jaamacado iyo nolol ka raadinaysa inay turkiga tagaan oo fiisa ama basabor doontay ayuu intuu ururiyo dowladda lacag kaga qaata taariikhdaa qoraysa labada nin ee qurhay noo qorani ee ay taariikhdu qori doontaa waa mustafa qodax iyo xuseen carab ciise oo labaduba taariikhdu qorayso oo damiirkoodu nool yahay oo ka hadla xaqa ay leeyihiin iyo dalkooda dhibka lagu hayo ninka halkaa isagoo jooga maanta ka hadla taasina wuxuu ka raganimo badan yahay waxay ka raganimo badan yihiin qaar badan oo gudaha somalilan jooga oo xoolaha somalilan cuna oo xilal haya ama soo qabtay ama iminka haya ayay wallaahi uga waxtar badan yihin somalilan ayaga oo mabdii federaalka ku shaqaynaya oo xamar jooga taariikhda qoraysa xaaladda iyo wakhtiga ayaa ragga kala saaraya oo nin waliba taariikhda ayay u gelaysaa wuxuu gashaday iyo wuxuu yeelay waananu haynaynaa waananu gudbinaynaa oo dadkaanu gaadhsiinaynaa annagoo ilaahay ka baqanayna oon iyagana madsabidayn waxaynu ogeyn dhowaan niman sheeganaya dowladda federaalka inay xilal ka hayaan oo wasiiro iyo magacyo sheeganaya oo majeerteeni inay deegaankooda u badheedheen inay u qabyaaladeeyaan oo ay u hadlaan oo ay ka gaadhay ilaa heer dagaal waxaan ogaa brime ministerka cabdiweli ee haddana madaxweynea noqday isagoo brime ministerkii somalilanah inuu puntland halkaa u fadhiyey oo uu badheedhiyey garan maayo ragga kayrkooda ee xamar jooga ee kuwaa la midka ah ee arkaya siday kuwaasi u badheedhayaan ee ay dalkoodii dagaal ugula jiraan ay qabyaaladda ugu badheedhayaan ay puntland uga hadlayaan iyagoo xilkii soomaali oo dhan sheeganaya yacnii waa damiir laawayaal waan ogahay inaanay guul keenayn shakhsiyaadka xamar naga jooga oo aanay waxna yeelahayn laakiin taariikhdooda raadkooda waan ururinaynaa ummaddaananu soo hordhigi doonnaa una qarin mayno waananu la daba taagnaan doonaa noloshu way isbedeli doontaa oo farmaajona meesha wuu ka tegi doonaa ayaguna wakhtigu wuu isbedelayo xilalka weyn waaye lama horaana waa cawsiyaal waxa laisku yimi doonaa ceelka hargeysa sidii raggii horeba ay u yimaadeen ee maanta ismaaciil mubaa u dhex fadhiyo cabdiraxmaanna lagu keenay meydkiisa ayuunbay ku dambayn doonaan hubaal way ku dambayn doonaan waxaan leeyahay ayagii kuwa kale sacabka u garaacaya ee xisbigii dhacaya waddani ka mid ah iyaguna waxay sacabka u garaacayaan waxaanay garanahayn wax alla waxay faa'iidayaan iyo meelay ka socdaan iyo meelay ku socdaan dad garanaya maaha waa dadkaa fooda ku hayaa ah ee xaalad kasta oo dalkooda lagula dagaalamay shacabka u garaacaya biduuni sabab doqonnimo ka weynayna ma jirto somalilan waxaan leeyahay dadkeeda war ururiya macluumaadka ururiya oo kula xisaabtama beritolan weliba wax ku hadlay anuu qoraalada qur-aan iyo codadkooda iyo mufiyadooda iska duuban iyagoo sogeyn kuwa jariska xoorka ahi waan ururiya maalintan soo hordhigeen waa kan wejigaaga yees akhriso ma seexdaan habeenkii xalaaleeya waxay ku hadlaan waan ururiya waan hordhigaya nin walba anoo hayb iyo habeen soo weegay waxaan leeyahay war ururiya tan uu nagu sameeyay inuu gurna ururiya oo u dhiga meel oo screenshot ka qaada qoraaladooda ay soo dhigayaan facebookyada iyo commentskooda qaldan iyo codkooda una ururiya waxbay noo taraysaa waxaan idinka codsanayaa kuwa qaadow
iisoo gudbiya anaa filgaraysanayo meel ku filgaraystee oo ay wax taraysaa oo laamaha ay khusaysa dowladda somalilanna u gudbin doona aniguna aan kula dagaalami doona markhaatigooda ayagoo isku furayaan berri bay qaar xildhibaan dalban doonaan berri bay qaar xilal doonan doonaan berri bay qaar sharaxi doonaan nin waliba wixii uu qoray waan hordhigaya maalintaasaanu aan kula dagaalamaya wixii uu yidhi sidaasoo kale laydinku baahan yahay qof wanoo reer somalilan waxaan leeyahay war ha ruxmina dagaalku ma aha xabadda dagaalkii ugu weynaa baa laynagula jiraa risiqaa laynagala dagaalamaya noloshaa laynagala dagaalamaya hawadaa laynagala dagaalamaya wax walba waa laynagala dagaalamaya cahdigii nebiga ayay soo baxday dagaalka noocan oo kale ah yuhuudda iyo qurayshtii nebigu ka dhashay waxay kala dagaalamayeen nebiga markay arkeen diintiisoo la qaadanayo dadkii u soo jeestay waxay kala dagaalameen wax walba dacaayaday suuqa u gelinayeen been bay samaynayeen munaafiqiin bay samaynayeen tii oo kale inagu socota waxaa la arkay in waxay noo socdaan oo arrinteennii ay meel fiican marayso tii baa inagu socota markaa dowladdeennu arrintaa way dayacday waxayna la dagaalamayaana waa dowlad inaan u babac dhigaynaa ku bixinaysa wakhti gelinaysa haddii alle kuu roon yahay gelinaysa adduun gelinaysa itaal kaleba aan haynin oo taaggeedu uu noqday uun haddii alle kuu roon yahay brobagando iyo been abuur waxaynu ogeyn oo iminka taagan inay diyaaraddii haddii alle kuu roon yahay diyaaradihii ay yidhahdeen annagaa joojina iyagoo aan awoodu lahayn haddaad dhex gasho ma garanaysaa aviationka ama ikawo dad badan baa u haysta soomaaliya in lagu wareejiyey hawadii soomaaliya gradekeeda waan ogahay laguma wareejin awoodna umale inay kantaroosho ama ay diyaarad celiso umale awood hadday u leedayna maanta soomay gaadheen waxaynu ogeyn inay awood u weyday dekedeenna markii laga shaqaynayey dhib weli heshiisyadii dagaalkii ay gashay waynu ogeyno waa tii awood u weyday imaaraadku waa kii uun maaha dowlad kale qadar maaha hadday maanta qadar ahaan layd imaaraadku bayde waxay nagu samayn lahayn iyagay la talo tahay laakiin imaaraadku maaha mid ay ka dhaadhicin karaan ayagu wax ama wax gashan karaan oo waa kuwa ka cawdaba been abuur weeyaan diyaaraddan joojin been abuur weeyaan ethiopian airline baan joojino iyana way imanaysaa waan ogahay wax alla waxaas dhan wax lagu khalkhalgelinaya dowladnimadeena dagaalku waa dagaal waxyeello weyn somalilan gaadhsiiyey oo aanay dowladdeennuna haddii alle kuu roy aad mooddo inaanay dhaadisanayn oo aanay dhaadin offer confidence baa dowladdeena ka muuqda offer confidence waxa weeyaan waa normal maaha waa abnormal haddii kalsoonidaadu cirka ay qabato oo tira xuduudaha iyo ciidankaygii militarigaygii dowladdeedii baan haystaa waxba layma yeeli karo waa doqoniimo brobagandada iyo warbaahinta iyo haddii alle ku wax adduunka u samaystay waa dagaal inuu ku dagaalamo maaha inaad eegato dagaalku ugu socda maraykanku waxa uu afghanistaan u duqaynayey ee al-shabaab oo xamar joogto ugu duqaynaya ammaankiisa ayaa ku jira sidaa ammaankeennu wuxuu ku jiraa inaynaan eegan maanta hargeysa ku sugin iyo burco iyo somalilan aanayna ku sugin cadowgeenna iyo dagaal nagula jire waa inaynu bartu cadowgeennu isku urursanayo ugu gallaayanu dagaalkeennu ka tallaaba xuduudda oo ugu tagaa halka cadowgeennu naga soo weerarayo oo aynu tallaabada kastay qaadaan tun la mida qaadna gurigaaga haddii lagugu soo shiido dhagaxa ugu horreeya markuu kugu soo dhaco waxaad odhanaysaa talow ma accident baa talow maxay tahay waxa laga yaabaa inaanad bixin ka labaad markuu kugu soo dhaco ee shiinkadu qayliso qasab intaad baxdo ayaad ka fal celinaysaa oo daydayaysaa ciddii ku soo shiiday iyo sababta lagu soo shiiday ama tuuryada kugu dhacday ama dhagaxo dhagaxii baa inagu dhacay kii koowaad oo kii labaad baa inagu dhacay oo kii saddexaad baa inagu dhacay oo kii afraad baa inagu dhacay oo kii shanaad baa inagu dhaco dowladdeenna iyo madaxweynaheenna iyo innagiyo shacabkeenna wuxun bay leeyihin maantana tanay sameeyeen doqonnimo ka weyni ma jirto inaad waxay sameeyeen u sheegto dee maaha sax markaad ogaato dhibaatada kugu socota waanaad solutionkii keentaa iyo xalkii ood ficil kaga jawaabta ficilkii baa laynooga baahan yahay dowladdeenna waxaan kula talinayaa oon ku soo gabagabaynayaa dowladey ina adeer kaalintaadii way bannaanto wallaahi ah haddaad eegatana dagaalkaasi wuu kugu soconayaa haddaad laakiin ka jawaabto oo aad halkeeda kaga jawaabto oo dowladnimo kaga jawaabto oo warbaahintaada iyo wasaaradahaaga ku shaqada leh ay shaqayn waayaan waa dagaal inagu socdo lagaaga guulaysanayo khalkhal lagu gelinayo dowladnimadaada waa in hay-adahay samaysteen qaar la mid ah aynu samaysana qadar baa caawinaysa malaayiin dollar baa lagu bixinayaa
inaga imaaraadkeenu wuxuu noqday saalax baxuuf ku sheegayay ninku waxa anaga carabkaygu carabiyada la mid maaha buu saalax baxuuf imaaraadkeenu waxa la inagu fooyay garan maayo anigu dawladda ay qadan weyn turka fadhiyaan inagu wada dagaal waxaan ku soo gabagabeynay hadalkayga war dagaalka inagu socdo maaha inaynu ka sheekayno ee waa inaynu ka jawaabno oo aynu kaga jawaabno ficliyan dawladnimo kaga jawaabno afar qof oo shicib oo hadlo oo kamid ahay iyo qaar lamidii waxba kordhin maayaan waxa kordhinaysa waxa nala dagaalamaya waa dawlad aan taag lahayn oo itaal daran oo inaga itaal daran 3 sanadood farmaajo jiray baynu 3 sanadood inagu jiray ka cabanayna leena weyna soo tuuray maantana tan uu sameeyay doqoniimo ka weyn ma jirto 3 sanadood nin joogay 3 sanadood oo jooga ka cabanaysa waxaan leeyahay dawladdu ha ka kacdo fadhiga oo heeriyada ha iska tuurto oo ha ka jawaabto waxa inagu soconaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa inoo mar dambe